hadda dawladda joogto waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda gargaarka iyo Dictoreso Maryan Qaasim wasiiradii gargaarka iyo ka hortagga musiibooyinka waa marwada kaliya ee astaanta u noqotay in haweenku ay dalka horumarin karaan. kuma fakarin inaan ku soo biiro siyaasadda Soomaaliya waayo markaygii horena dhakhtarad ayaan ahaa. Xusuusaha aan maskaxda ka go'in waxa qayb ka ah mashruucii aada iskuulka iyo u ololaynta caqabadaha haysta hooyada iyo waxaan ognahay waxqabashadeedii iyo waxqabadkeedii ka soo qabatay xilliyadii ay ahayd wasiirka heer federaal sidoo kale waxay aad uga qayb qaadatay xilligii waxbarashada good school oo ay kaalin muhiim ah ku lahayd in barnaamijkaas la hirgeliyo oo ay ku anfacday Soomaaliya oo dhan. Dhulka meel fogaan laga yimid oo maalinba meel la soo istaagay mar baa jirtay aan waxba la siin jirin dumar laakiin waa la soo dhaqaaqay waxa la yiri hala siiyo 30% yaan la gaarsiinin 30kii laakiin wax ku dhow in oday dhaqameed lagu qanciyo kursigan gabar buu xiran yahay waxay guulaha la gaaray kamid ahayd. Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed waxay u diyaar garoobaysaa soo dhaweynta shakhsi ay si weyn ugu faanto bulshada kalsoonida ay ku qabaanna ay tahay mid ka duwan musharaxiinta kale ee loolanka u taagan. Inaya Mohamed Abubakar Salim taageersata ama ku ayida Dictoresa Maryan Qaasim kakwaye musharax ya Hilwani adeegaan ya Yamini shibrahira zaidi kakwaye sharaxeed ruuxiga kwa adeegaan insha Allah wanta wiid chikunaye taageersata na jawabu ningi shikililo Soomaaliya na sasa tunataraja moyo wetu amini kwa ina kishikila chindu na kishwanyiriza ije inatahajo katika moyo amini. Maryan Qaasim guulayso. Bulshada deegaanka ayaa adeegsanaya warbaahinta gudaha si ay u muujiyaan taageerada Dictoresa Maryan Qaasim. Run ahaantii markii la yiraahdo laga hadlayo musharaxiinta guud ahaan soo sharaxay xildhibaannimada ee Soomaaliya waxaan dhihi karaa waa mid ka mid ah dadka ugu mudan in la doorto. aadan ugu faraxsanahay hooyo Maryan isku soo sharaxay xildhibaannimada aad iyo aad guul ilaha siiyo waa ku faraxsanahay. aniga hadaan ahay heer Baraawe insha Allah waa ku faraxsanahay waan soo dhaweyn doonaa waa hashig gabar kali aan ka fiirsanayno reer gobol cad ahaan hadana waa ku taageerayna insha Allah waa soo dhaweyn doonaa insha Allah gacmo furan ku soo dhaweynana Maryan hadaan maqlis insha Allah adina waxaan ku leeyahay soo dhawow degmadaada way bulshadaada joogto waa meesha aad ku dhalatay oo meesha aad ka tirsan tahay kulay waan kugu soo dhaweyn doonaa insha Allah. Boorar waaweyn ayaa la suray goobaha ugu caansan magaalada. Marka waxaan arki karaa waa la socdaa laakiin geediga wali waa fog yahay oo wali meeshii la rabay lama gaarin sababtoo ah wixii guud iyo wadciga guud kama dhaxbixi kartid. Marka gabdhaha siyaasiyiinta ayagana waxa looga baahan yahay inay noqdaan hal kutlad oo isku xiran oo codkooda uu noqdo codka haweenka. waxayna bulshada u arkaan waxqabadka Dictoresa Maryan Qaasim xaqiiqo aan indhaha laga dadan karin. Dictoresa Maryan Qaasim Ahmed markoobaad mar labaad masdaad oo codeynay deegaanka Baraawe waxfeen qabatay shacabkiisa waxfeen qabatay waa codeynayna waa jecelnay Dictoresa waa soo dhaweynaa Maryan Qaasim insha Allah taala codkeeda ida siinayna insha Allah taala. aan ugu faraxsanahay maadaama maamada musharaxa ay tahay sida qabar aan ku maqleen waa soo dhaweynayna marka ugu horeyso qof haduu uu dhiiriyay ama wax qabad leeyahay waa la soo dhaweeyaa waxaan leenahay maamada waxaan leeyahay soo dhawaa waa ku soo dhaweynayna insha Allah. waxaan rajaynayaa in xaqiijin doonto baahiyaha dadka reer Baraawe ay qabaan oo ku aadan dhanka federaalka iyo halka dhinaca state-ka labadaba run ahaantii way mudan tahay in la doorto guud ahaan ayada oo u soo shaqeysay Soomaali weyn oo dhan waxaan rajaynayaa reer Baraawe qof ay la dhacsan yihiin bulshooyinka Soomaaliyeed in ay Baraawana ay maxaysan ka xasdi doonin ay midnimadaasho xubnimadooda baarlamaanka on rajaynayo in ay wax badan ka faa'iidi doonaan iyo waxqabad sax ah oo dhanka deegaanka ah. Deegaanka Baraawana wuxuu kamid yahay meelaha dadka doorashada maxay u soo doontaa oo UN mar horena sanadihii 2000
2014 ilaa 2017 saddex sano waxaan ka shaqaynayay ayagana hay-adahaas UN-ka champion waxaan u noqday fistolada oo aan intaan fundraising weyn aan sameeyay 100 dumar aan la qalay waxaan champion u ahaa arrimaha hooyada sida loo dhimi lahaa dhimashada hooyada oo umul raaca oo waxaan macno lahayn oo umul raacaysa لأنه مركان نحن لما شذا ذلك وحكولي وأوجه أجل يساعد كمودي أو أجش يساعد وقت ليلة هاي لكن معناها الدلال كان كوضاعين هو إذا لا درياله يعني شامبيون وها إلا هذا وهاي هذا ينك وحسن كلا شقية kursiga tirsigiisu yahay hoob 194 waa lagu tartamayaa laakiin indhaha bulshada hal qof ayay eegayaan waa wasiiradii hore gargaarka iyo ka hortagga musiibooyinka Ditoreso Maryan Qaasim maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada Baraawe ay soo gaarto Ditoreso Maryan Qaasim si ay ugu dhawaaqdo inay u taagan tahay matalaad dhab ah